بسم الله الرحمن الرحيم sidoo gariiqaankaasi iga horreeyay sheegay dacwada Abdimaalik Muusocodon maanta ay bilaabantay fadhigii koowaadna uu yahay walow gadaloolooyin ay noo muuqdaan haddana marxaladii koowaad iyo fadhigii koowaad maadaama ay tahay kama hor dhacayno waxaanu kaliya bulshada u xaqiijinaynaa in ay maanta fadhigii koowaad ee dacwadaas qabsoomay hal baaran la dhageystay marka taa laga yimaado eedaha la haysto dad bulshada u xasuus waa saddex eedood waxa Abdimaalik Muusocodon loo haystaa saddexda eedood laba waa isku hal dhacdoon waa iskuulka abaarsaad warar been abuura iyo waraad ku ceebeynayso aad ka sheegtay ilaa haddana ma aragno dhibanihii abaarso oo yimi maxkamadda waxa kale tahay inuu qaranka Soomaaliland propagandeeyo yiri taliskii Cabdi Yilay tubtiisa buu hayaa ama tubtii qaran muxuu talisyada hoogay ayuu hayaa laftarkeeda taas markaas imakayada dhaxgelimayno dacwadu maadaama bilowtay waxaanu jecelahay ka gariiqaan ahaan xilliga ay bislaatay inaan ku hadalno ayaanu si waafiyo faahfaahsan uga hadli doonaa marka inta laga yimaado anigoo magaca ururka qaranada Soomaaliland ku hadlaya oo ah xogeeyay guud ee ururka qaranada Soomaaliland waxa aanu walaac xoog la ka muujinaynaa aadna uga walwalsanahay maanta in warbaahintii xor tahay iyadoo awal hore waxa dhici jirtay markaaba gaf baahayd laakiin garsoorka ayaa laga xalaashan jiray oo waxa jiray waxyaabo garsoorku marna ku diido xukuumadda marna ka yeelo laakiin maanta inay xukuumaddu iyadu gacantii sharciga gacanta iyadu ku qaadato oo iyadu albaabada iskugu laabto waa arrin walaac ciidale ka urur qaran ahaana aanu aad uga walwalsanahay natiijada ay dhalin doonto waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa waanu wasaaradda warfaafinta ugu baaqaynaa inay sharciga lagu soo laabto inaan xaydaabka sharciga laga bixin wala yaqaana hadii dawladnimadu xaydaabka sharciga laga baxo waxa ka dhalan kara waa waxay nidaamyada hore ku dumeen waa maamulkii oo meel aan haboonayn ku biyo shuban kara waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa oo waliba wasaaradda warfaafinta leenahay hal lagu soo noqdo xaydaabkii sharciga labada warbaahinood ee Aerial TV iyo Horyal TV oo si sharci darro loo xayrayna hal laga noqdo xayraada la saaray iyo amarka maamul ee ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo ah mid sharci darro mid qeyru dastuuriya waxaana ka hor imanaysaa arintaasi qofka muwaadinka inuu war helo inay saxaafaddu si madax banaan gudato waajibkeedii haddii intaasi la waayo saxaafaddu waa rugniga afraad ee isu dheelitirka nidaamka dawladnimo haddii saxaafad xor la waayo haddii la waayo meel qofka muwaadinka uu helayo wuxuu xaq u leeyahay iyo inuu information helo maamuladu amba nidaamka dawladnimo waa shaqaale qofka shacabkina waa mulkiilihii lahaa shaqaalaha wuxuu qof kasta xaq u leeyahay muwaadin kastana xaq u leeyahay talaabo kasta dawladdu qaado inuu ka warbixiyo inuu bulshada la wadaago si loo helo nidaam dimuqraadiya inagoo maanta nidaam dawladeed oo dimuqraadiya qaadanay inagoo maanta kiishalay waxaan ku ridnahay caburin waa tan weynaatay waxa nidaamyada caburinta ka dhashaan inagoo shalay keenu ka dagaalanaa caburinaha maanta waan ka xunnahay nidaamkeena dimuqraadiga dawladeena codka shacabka ku timi inay warbaahin xora oo bulshada la wadaagtay warka way dhibsan kartaa laakiin maaha iyada in la dhibo ee waxay cidda talaabada qaladka qaaday ee warka ay faafiso hadii ku qaliinta ay madaxweynaha ka sheegi karaan wasiir bay ka sheegi karaan xilali guud wax ka sheegi karaan garsoor bay wax ka sheegi karaan kaliya waa in nidaamka sharciga loo maro markaas hadii warkaas war been yahayna garsoorka hortiisa la isla yimaada hadii war sax yahayna ay dawladdu dib u soo saxdo nidaamkeeda wanaagsan laakiin cidina soo hadal qaada albaabada aan isku laabayna waa sharci darro iyo dastuur jabin aan marnaba sharciga meel la ka waafaqsanayn marxii wadii mahadnaqay dhammaan warbaahinta kala duwan halkan joogta anigoo ku hadlaya magaca gariiqaanada difaacayay Abdimaalik Muusocodon waxa muxuu ahaa aan idin xaqiijinayaa in dacwadaasi maanta bilaabantay lana dhageystay maragii ugu horeeyay ee dacwadda isla markaana fadhigii labaad la gali doono maanta salaasada 25 bisha wixii faahfaahinta dheer gadaal baan idin ka soo gudbin doonaa waxa kala rabnaa inaan idin wadaagno ka qareen ahaan walaacan ka qabno shalay toole oo taariikhdu ahayd 12 telefishan oo xukuumaddu xayirtay gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo kala ah telefishanka Aerial iyo telefishanka Horyal TV waxaan aaminsanahay maadaama qaranada Soomaaliland xayiraada la saaray labada telefishan ay tahay arrin aad ugu xun xuquuqul insaanka isla markaana gafku ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta Soomaaliland ay noqoto deegaan maaragtay u saamaxayeen ku shaqeeyaan أول ولا حيري شيء ورباهين لكن حيري شيء محكمة ضها هو حلوة حيري شيء حكومة محكمة
waa laga caban karaya warbaahinta markay maaragtay gaf gasho laakiin soo sharcigu dhigay waxa waajib ah cidda ka cabanaysa hay'ad warbaahineed ama xukuumadda ama qof ahaade inuu ashkatoodo hay'adaha sharciga iyo maxkamadaha isla markaana dhinaca la ashkateeyo iska difaaco halka markuu garnaac cadaalad dhaco go'aan laga gaadho laakiin waxa wax aad u foolxun oo markii ugu horeysay Soomaaliland ka dhacday isla markaana aan uga diganaa xukuumadda in la sii wado dhaqanka shalay bilaabmay isla markaana rajaynaa in laga noqdo sida ugu dhaqsaha badan leh in warbaahin shaqaynaysa inta ciidan loo diro lagu xayraa amar wasiir waaxda xukuumadda ama fulintu waxay leedahay wax la yiraahdo go'aano maamul ama go'aano idaari ah bay leedahay go'aanadeeda ma laha go'aano garsoor marka go'aanadan sidan oo kale xayiraad qof lagaga qaadayo xuquuqdiisa shaqo ama lagu joojinayo inuu access u yeesho inuu sii shaqeeyo waxa gaari karay qura maxkamad weeye marka waxaanu cambaaraynaynaa gafka shalay lagu la kacay labada telefishan ee Horyaal iyo Ariel TV aad baan uga xunnahay waxaan markaa cidda ka mas'uulka gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ugu baaqaynaa inay ka laabato go'aankaas warbaahintaana loo caliyo xorriyadooda saa u shaqeeyaan xariga arinta xanibaadda muxuu ahaa labada TV sida garyaqaanadii hore sheegeen waxa muhiima in habkii sharcigu ahaa qofka dambi uu gali karaa ma diidanin oo ma lihi saxaafadu dambi ma gali karto saxaafadu dambi way gali kartaa laakiin markii saxaafada loo haysto waxa haboon in loo maro habkii uu sharcigu tilmaamay markii xildhibaan la haystana waxa haboon in loo maro habkii sharcigu tilmaamay markii islaan caanaha iibisal qabsana in loo maro habkii sharcigu tilmaamay sababtu habku muhiim u yahay waxay tahay cadaaladda 60% waa habka loo marayo waxan muxuu ahaa habka loo marayo wadada loo marayo waa muhiim sababtoo ah wadada loo maraya waxay keenaysaa maxsuulkii imika tusaale ahaan haddii aan karo inagoo aan garnaqsan intan ku qaato meel kugu xidho muhiim maaha inaanu garnaqsanaa sababtoo waan ku haystaaba halkan aad iigu jirtaa marka haddaan intaa wada karayo oo aan waxaa wada samayn karayo wax daruuriya ma noqonayso markaa eedna noqon mayso waxaan uu sameeyay sababtoo ah waaba kugu jiraaba xildhibaan baad haysataa wargeysiyaad haysataa saxaafad baad haysataa taasi waa qodobka labaad arinta muxuu ahaa wargeysiyada lagu haysto anigu waxa jirta oo nu soo taagnayn iyada oo warbeenuu sheegay iyo muxuu ahaa iyo qof subcadiisa dilay madani lagu qaadayo leeyahay magdhow bixi oo dee qof shiciba muxuu ahaa qof shiciba uu caabanayo iyadoo madaxi cabanayso ciqaabo 10 sano oo 3 sano oo 6 sano waan arkay marka arintu waxay tahay war in qof dambi gala waxa weeye wax la arko weeye qofku dambi uu gali karaa laakiin waxa cajiiba cidii shaqadeedu ay ahayd inay dunuubta ilaalisaa inay iyadu gasho dambi ah wixii aynu dhiganay inay ka dul talaabsato taasi waxay keeni kartaa يعني محصول كوين waxa uu keeni karo Horyaal ama Ariel ama Faarax ama Ismaaciil haduu qodob jabiyo dhibaato weyn igama soo gaariso laakiin hadii ciidanka booliska ama muxuu ahaa hay'adaha waaweyn ee dawladdu ay sharcigii jabiyaan taas way tawlaaci waayo tan qof bay ku koobnaanaysaa laakiin tan ummadii oo dhan bay gaaraysaa waxaana taa aan uga warwarsanahay waxaanu garaynaa halkay ku dhamaan doonto arintuna waxay tahay hadii muxuu ahaa sharcigii aynu dhiganay waxa ku maahan Soomaalidu ku maahan sharciga cidii dhigtay waa u sharaf muxuu ahaa cidii ku dhaqantana muxuu ahaa waa wanaag cidii jabisana waa ku dambi sharci macnaheedu waa intaaba okay hadaba waxa weeye hadii maanta ifafaalaha leedahay wajigan maanta aynu aragno waxa walaac weyn ka qabnaa arrimahaas halka ku dhamaan karaan marka waxaanu codsan lahay oo ka codsanayna cid kasta oo ay khusayso in muxuu ahaa sharciga iyo hanaanka nidaamka muxuu ahaa iyo ismaamulka sharciga loo soo noqdo taasi inaga sharaf noo tahay wadankeenana wax badan baa ugu hagaagaya waxaana la hubaa oo imika adduunka la hubaa in sharciga oo lagu dhaqmo ay horukac dhaqaale iyo muxuu ahaa badqab muxuu ahaa dawladnimo labadaba ku jiraan oo argagixisooyinka iyo muxuu ahaa iyo jabhadaha dilaac iyo waxa soo dhan ay ka lalato muxuu ahaa tabasho sharci darro ama cadaalad darro oo dadku tawdaan marka tabashadan waxa lagu soo yareyn karaa iyadoo nidaam maxkamadeed oo madax bannaan oo hufan loo maro qofkii lagu dacweynayna halka uu iska difaaco loo maro dadkuna dhageystaan halka wixii ka soo baxa go'aankeedana la wada qaato waa sidaas taas in lagu soo noqdo ayaanu nagu aad ugu baaqnaa